kulanti habboonid lahaantiin baa khiyaartaan hawada ku saaxiibnay waa marka la iyo barnaamijkeena wargeysyada waxay qoraan oo toddobaadkii hal mar kala socotaan bartaan YouTube-ga ku leenahay Somali TV barnaamijka calaamad waxay idin soo tabisay anigoo ah safiirka hore ee dawladda Mareykanka u joogay Soomaaliya ayaa soo jeediyay talooyin Somaliland u sahlayay inay qaramada midoobay fadhi ka yeelato qadiyadeeda waxa qoray wargeyska dawan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa. Ambassador Stephen ayaa falanqeyn ku sameeyay warbixin dheer oo dhawaan soo saaray maxadka Heritage International oo fadhigiisu yahay magaalada Washington isla dalkaasi. Warbixintaasi oo dawladda Mareykanka lagu soo jeediyay inay aqoonsato Somaliland. Danjire Stephen oo daba socda qodobada ay warbixintu u cuskatay soo jeedinta ah in la aqoonsado Somaliland ayaa isaguna soo bandhigay talooyin la xiriira jidka ay dawladda Mareykanka u mari karto aqoonsi ay hesho Somaliland. Ambassador Stephen wuxuu sheegay in ururka Midowga Afrika oo kiiska Somaliland loo gudbiyay sanadkii 2005 oo xilligaas iska indhatiray iyadoo markaas qaar ka mid ah dawladaha Afrika ay ka dhex arki waayeen danahooda gaarka ah isla markaana ay qadiyadda Somaliland dalalkooda ka dhex abuuri kartay in gobollo ka mid ah madax bannaan sheegtaan waa sida hadalka u dhigay laakiin 16 sano kadib loo baahan yahay in dawladda Mareykanka uu Midowga Afrika kala shaqeeyo sidii ay u dhexdhexaadin lahaayeen Somaliland iyo Soomaaliya oo wada hadalla in muddo soo jiitamay ay midhodhali waayeen. Danjire Stephen wuxuu sheegay in Midowga Afrika oo Mareykanku gacan ka siinayo ay wada hadallo aan dib u dhac lahayn u qabtaan labada dal haddii ay wada hadalladaasi ka burburaan dhinaca Muqdisho isla markaana aanay ka soo bixin wax natiijo ah ururka Midowga Afrika si furan u sheego cidda mas'uulka ka ah burburka wada hadallada. Markaasi kadibna golaha ammaanka ee qaramada midoobay loo gudbin doono codsi ah in Somaliland kursi laga siiyo qaramada midoobay haddii Midowga Afrika diido xubinimada Somaliland iyo haddii kaleba loo ogolaan doono inay ku biirto qaramada midoobay Midowga Afrika la'aantii ayuu yiri Danjire Stephen. Wuxuuna intaasi ku daray in waddanka codsanaya xubinimada qaramada midoobay uu u baahan yahay codadka 3 dalool si ay kursiga uga hesho qaramada midoobay laakiin waddan walba uu danihiisa ku miisaamayo kiiska la soo dhigay haddii ay taasi dhacdana inuu shuunuhu ka hor iman doono xubinimada Somaliland. Intaas waxaan ku soo afmeerayay xubinteena wargeysyada idin la socodsiinaya anigoo ah Idmaan Muuse tan iyo intaan dib u kulmi doona amaana la kulanti dambe wax salaam.